madaxda ugu sarreysa xisbiga mucaaradka wadani oo ku yimi magaalada Burco socdaalka u kuurgalka xaaladda abaaraha saameynta ba'an ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolada bariga Somaliland ayaa ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Togdheer 2,000 oo kiisho raashin ah iyo 20,000 oo dollarka Mareykanka oo lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu halakeeyeen 100 booyadood biya waxaana si wada jir ula hadlay warbaahinta musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo sharaxay gobolada loogu talagalay deeqdaasi gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Qabo ayaa ka mahad celiyay gurmadka abaaraha ee xisbiga mucaaradka wadani ugu dambeyntii hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ka hadlay goobtaasi waxaana ugu baaqay shacabka iyo xukuumadda Somaliland in loo midoobo kaalmeynta dadka tabaalaysan ee ay abaartu baabiisay dunyadii ay ku noolaayeen waxaan halkan u nimi gobolka u nimi inaan xoogaal u noqono xaaladda baan ee abaaraha oo aanu doonayno dareenka inaan shacbiga iyaga la qaybsano ujeedada aan halkan u nimi waxa weeyaan xaaladda baan ee abaarta ee ka taagan gobolada bari gaar ahaan gobolka Togdheer gobolka Sanaag iyo gobolka Sool xisbi ahaan waxaan go'aansanay inaan xoogaalna u noqono wixii taakule xisbiga taageerayaashiisa soo ururiyeen aan ku wareejino guddiga qaran marka la hadalay guddigii abaaraha ee qaran waxay soo wakiisheen barastaafka gobolka Togdheer deeqda waxaan ugu talagalnay 3 gobol gobolka Togdheer gobolka Sanaag iyo gobolka Sool dhammaan goboladii ka farcamay goboladaas way ku hoos jiraan xisbi mucaarada ma nahayo kale waxa leenahay xukuumadda la tartami kari maysaan kulmiye waxa ma bixiyo dawladdu ka soo qaaday deeqdan halkan maanta ku wareejinayna waxa weeye 2,000 oo kiish oo raashin iyo 100 booyadood oo biya media ba hore uga aragteen abaar aad iyo aad u baahsan ka jirta gobolka runtii roob khayr qaba ayaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa mid degdeg ah sidoo horeba uga baranay inuu gaarsiiyo gacan binaadan waxa ma tari karto wax kasta inuu isnaado hal hogol oo daada ayaana kafaynaysa waa bilow tii ugu horeysay tii gobolkana waa la wareejinayaa gudoomiyaha gobolka wareejin doona berito insha Allah taala kadibada wixii ka yimaadana waa la wareejinayaa insha Allah taala heer qaran baa lagu wareejinayaa wixii kale soo kordhana insha Allah taala waa u taaganahay gurmadkeeda iyo ka qaybgalkeeda u taaganahay safar baan ku soo mari doonaa meelo saambula dalka oo dhan imika ma wada mari karo laakiin meelaha dhibaato ka jirta waan soo mari doonaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay roob inoo keeno waxaan leenahay ummadda reer Somaliland mucaarad iyo xaafid iyo mid guda jooga iyo mid dibad jooga iyo mid dawladda iyo mid shicibaba aan gacmaha isu qabsano dhibaatada waxa lagu qaabilaa midnimo ku qaabilo qarannimo ku qaabilo inagoo gacmaha is haysanayno dhibta dadkeena si uga saarleen furugaad qabano aad baa mahadsantii ومركي ugu horeysay mid kamid ah axsaabta siyaasadda Somaliland oo deeq gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee abaaru saameeyeen gobolka Togdheer Ali Baar Maxamed Boos TV caalamiga Universal Bro